dagaaladii isdaba joogga ahaa ee dalka ka dhacay wuxuu sabab u ahaa barakac iyo burbur laxaad leh oo ku habsaday kaabayaashii nololeed ee bulshadu adeegsanaysay. waxa dhammaanba burburay adeegyadii kala duwanaa sida caafimaadka, waxbarashada iyo ilaahay dhaqaalaha. waxbarashadu waxay ka mid ahayd meelihii ugu burbursanaa ee khasaaraha badani gaadheen. carruur iyo dhalinyaro tiro badanina wakhtiyadaas umay helin fursad inay iskuulla dhigtaan. inkastoo waqtiyadii dambe dib loo furiyo iskuullada dowladda, balse waxaa hooseeyey awooddii iyo tamartii lagu noolayn lahaa haykalka waxbarasho ee wakhtigaas jiray. dabayaaqadii sagaashanaadka ayaa waxaa dalka ka bilaabmay iskuulle gaar loo leeyayo qayb weyn ka qaatay buuxinta iyo tayeynta waxbarashada dalka oo arday badani ku liibaaneen. dugsiyada nuuraddiin wuxuu ka mid ahaa dugsiyada gaarka loo leeyahay ka hana qaaday magaalada Hargeysa. haddaba goormaa la aasaasay dugsiyada nuuraddiin yaa ka dambeeyey bilowgii dugsiyadan se imise arday ayaa lagu bilaabay? madrasad yar oo qol ah oo ku taala xaafadda Sheekhmada qol ayaan ku bilaabay keligay baan ahaa. waxaan sameeyey caw yar baan ardayda u dhigi jiray. caw 8 arday baan ku bilaabay. mahad ibraahim waa aasaasaha dugsiga nuuraddiin. waa muwaadin Somalilander ah. wuxuu ku dhiiraday inuu xirfadiisii macalinimo uga faa'iideeyo dhalinyaro badan oo baahi weyn u qabay waxbarashada asaasiga ah oo uu kala dhantaalay burburkii dalka ka dhacay. dadku dad ooman oo waxbarashada aad niyad iyo raqbad ugu hayay bay ahaayeen, leanno iskuul public muu jirin. hadduu jirayna wuxuu ahaa uun grade 4, 5 waxaan dhaamin. markaa dhalinyartii yara roonaatay ee dugsiga hoose dhexena ka roonaatay, dugsiyo sarena aan jaaniskeedii helin, waxay doonayeen inay bartaan luqadda ingiriisiga oo dee jaamacadaha iyo jaamacada ma way jirna dee wixii dibadda awoodayay iyo wixii waddanka iskaga shaqaysanay. waxaynu akhriyaa Mustafa iyo Aadan. waayahay idinkuna waad ka daba akhriysaan, waad kala eeganaysaan codka. waayahay 1 2 3 muuqaaladan aad daawanaysaan waa bartii lagu aasaasay iskuullada nuuraddiin. waxaa laga joogaa muuqaalkan 20 sannadood. This afternoon, I would have liked to talk about our future, or what will the future be like. Many people ask that question. Some even make their living predictions. kacakuf badan iyo awoodda dhaqaale oo yarayd, dugsiga nuuraddiin wuxuu waqti ku qaatay inuu la daalaadhaco duruuftii adkayd ee wakhtigaa ka jirtay dalka.
runtii waxyaabo fara badan ama caqabaad fara badan oo institutionska nala midka ah ama anaguba aanu ka midka nahay ee tacliimiga ah runtii na soo waajahay way jireen waxa kamid ah matalan caqabaadka faraha badan ee na soo waajahay xilli baa jirtay ardaydu aanay haysaninba haba yaraatee wax la yiraahdo textbook waa mushkiladihii noogu darnaabay ahayd oo macallinku uu note-ka uu dhigayo uu ka soo diyaariyo kolba buug yar oo uu isagu ka helo meelaha isla waqtigaas runtii duruufo badan oo adag oo noo hortaagnaa baa jiray intii ka dambeysay runtii mar walba waxa imanayay isbedel iyo horumar ayaa imanayay alxamdulillah iskuulku horumarayay oo maalinta ka dambeysay ay wax iska bedelayeen markaan wadnay markaa muddo 6 bilood ah aan wadnay ee hawsha socotay ayaan runtii aanu sameynay qorshe aan ku balaarinayna iskuulka سيد فرح إسماعيل intii ka dambeysay 1999kii waxa ay soo tiriyay horumarka iskuulka ee dhinaca waxbarashada tayinta manhajka tirada ardayda oo kordhay halkana waxa uga bilaabmay dugsiyada Nuurudiin bog cusub oo horumarineed siday saan ugu waday haddana waxaan bilaabay inaan dugsigii dhexe inagana tacliinteenu way soo xoogaysatay iskuuladii baa bilaabmay wasaaradii baa ayaa xoog yeelatay tacliintii baa quwo yeelatay xafiisyadii imtixaanka la bilaabay inay ardaydeedii galaanba ilaa standard 8 aan dhammayno oo national examskii galaan markaan sidaa muddo soo wadnay early 2000 bilowgeedii ayaan waxaan bilownay haddana dugsiga sare laga bilaabo sanadkii 2002 dugsiyada Nuurudiin wuxuu ka mid noqday iskuulada ugu tayada wanaagsan marka laga eego dhinaca waxbarashada isla markaana ku caanbaxay hufnaanta macallimiinta oo aqoon iyo aragnimo u leh waxbaridda sidaasna ay ku noqdeen udub dhaxaadka iyo horumarka dugsiyada Nuurudiin waxyaabihii xagga facility-ga wax badan oo caqabaad baa naga hor yimid laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin si wanaagsan baanu uga baxnay sabirkii aanu u yeelanay haddaanu dugsiyada Nuurudiin nahay in aanu ka midho dhalino guusha iyo yoolka aanu doonayno baa noo saamaxay in maanta ay dugsiyada Nuurudiin halka gaaraan waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo waxaan oran karaa dugsiyadani ama dugsigani waa jaamacad macallimiin ka dhigta truly speaking waxa weeyaan waa jaamacad macallimiinta ka dhigaysa macallimiin dhaba waxa laga yaabaa qofku isagoo balowbalow inuu yimaado iskuulkan laakiin aakhirataanka aad arkayso macallinkii oo halka uu yani quality-giisu uu heer sare yahay runtii wax nusqaana oo aan ka sheego iskuulkan ama macallimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan midna ma garanayo waa ii wada saxayn aniga dugsiyada Nuurudiin wuxuu ka qayb galaa oo ka mid yahay iskuulada u fadhiista imtixaanka shahaadiga ah ee wasaaradda waxbarashadu maamusho wuxuu dugsiga Nuurudiin tiraba 8 jeer u galay kalmaha koowaad ee ardaydii ugu sareysay imtixaanka shahaadiga waxa ugu dambeeyay sanadkan 2015 waxa kaalinta koowaad galay Cabdiraxmaan Maxamed Cige oo kamid ah ardayda dhigata dugsiyada sare ee Nuurudiin wuxuu keenay 750 dhibcood
wuxuuna ku guulaystay ardaygii ugu sarreeyey dugsiyada sare ee jamhuuriyadda somalilan. maamulka nuuraddiin wuxuu ku dadaalay inay ardaygii u keenaan dhammaan agabkii waxbarasho ee u sahlayay inuu ardaygu si fudud wax u baran karo. waxaa ka mid a laababka, laybareeriga akhriska iyo fasallada oo la jaan qaadaya heerka caalamiga ah ee u yaala iskuullada. run ahaantii horta marka waxbarasho tayale la doonayo ardayga waa inuu helo meel ku habboon oo shuruudda waxbarashada ka mid tahay ardayga inuu helo qalabkii u saamaxayay iyo ma garanaysaaye dhulkii iyo deegaanka wax ku baran lahaa. horta run ahaantii deegaankana waa deegaan nadaafadiisa iyo deegaan degan oo ardayga wax ku baran karo una soo hiloobi karo. inuu ka faa'iidaysto dugsiyada nuuraddiin kuma eka waxbarashada asaasiga oo keliya. macallimiinta iyo maamulada iskuulladu waxay ku dadaalaan inay ardaygii ka dhisaan meelo badan sida tarbiyada diinta, akhlaaq wanaagga iyo nadaafadda. subaxdii haddii aad booqato iskuul ka mid ah iskuullada nuuraddiin waxaad la kulmaysaa iyadoo ay ardaydii safka ku jiraan isla markaana ay si wacan u dhegaysanayaan muxaadarooyin kala duwan, wacyigelin iyo u iftiiminta ardayga ee mustaqbalka ka horeeya. kantaroolka ardayda sidoo Ismaaciil sheegay qayb baa qaadisan waa qaybta students affairs ka qaadisan. qaybtaasi waxay ka mar walba ay ka duushaa dhaqan xumada iyo wixii arday caqabad jira, ha ahaato timo xumo, ha ahaato food oo timaha la kala dheereeyo, ha ahaato surwaalka oo la isku dhajiyo. qaybtaasi waa qayb mar walba ma garanaysaa akhlaaqda iyo ardayda iyo nidaamkooda ka shaqeysa iyo habsanka maalintii dhayligaba. waxaanu subaxii laba meelood baa ardayda aad u sii jeegreynaa subaxii hore ardayda soo daahda wax weey soo habsaamay oo morning absence loo yaqaano iyo wax weey break time ardayda habsanka labada aad baan uga shaqeynaa. xakameynta dhaqdhaqaaqa ardayda aan u kala xakameynaa wax weey ardayda soo baxaysa galaasada aan macallimiinta permission card ka soo qaadanay iska soo baxaysa without permission iska soo baxaysa waanu yaraan oo xakameynaa ardayda. waxa kale oo aad u ilaalinaa kobcinta ardayda akhlaaqdooda sida ardayda dagaalamo oo kale baanu ganaax saarnaa wax weeyaan iskuulka 7 days baa laga heriyaa waalidkana waa la ogeysiiyaa. maadaama iskuullada nuuraddiin uu ku filiqsan yahay magaala madaxda somalilan ee hargeysa wuxuu iskuulladaasi yeesheen kormeero guud oo ilaaliya nidaamka waxbarasho ee iskuullada isla markaana la socda. markaan subaxdii imaado waxaan ka bilaabaa anigoo haysta schedule-kayga ama timetable-kii bal horta inaan ka bilaabo macallimiinta maamulayaasha oo dhahdo macallimiinta may dhan yihiin maanta cid baa maqan attendance-ka marka la isiyo aan waxaan doonayaa fulaan iyo fulaan iyo fulaan iyo fulaan xisaskooda oo anigoo haysta jadwalkii ayaanu galayaa. maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo la dhahdo oo hadafka ujeedada uu leeyahay kormeeraha guud muxuu yahay. kow waxaa weeye haddii aan kormeeri jirin quality of education la heli maayo. tayada waxbarashada laga dheegan karo iskuullada nuuraddiin waxaad ka arki kartaa ardayda dhigata oo qaarkood waraysiyo la yeeshay. waraysiyada qaarkood waxaan ku qaaday afka ingiriisiga ah, qaarna af carbeedka, anigoo uga dan lahaa inaan hubsado tayadooda aqooneed ee luqadaha. أشكر الله تعالى وأن هذه المدرسة لها سمعة أنها مشهورة في هذا البلد وأنها لديها أحسن تدريس في هذا البلد. I've been to a lot of schools here, but then here in Somaliland, I have to say Nuruddin is one of the best schools. ناحية التدريس ما شاء الله مدرستنا هي أفضل من غير المدارس الأخرى، وهي أفضل من معلمينها أفضل من معلمين المدارس الأخرى. dugsiyada nuuraddiin waxaa ka mid a dugsiga sekandariga ah ee gaarka u ah hablaha. dhowaan ayaa laga bilaabay barnaamij loo yaqaano kobcinta ardayga. waa barnaamij loogu talagalay in ardayga laga caawiyo maadooyinka asaasiga ah sida xisaabta, kimistriga iyo sayniska.
barnaamijkani qaabka u baxaya waxa weeye shanta xiisadood ee ugu culus aan isnidhi markii aan research fara badan sameynay ardayda waa shanta subject ee ugu culus saddexda sayniska biologyga chemistryga physics-ka maths-ta iyo englishta shanta xiisadood ayaan barnaamijkan ku salaynay waxaan u qabanay macallimiin professional oo takhasus ah macallimiinta khibradda fara badan leh qualification-kooduna aad u sarreeya ayaan u qabanay waxaa kaloo ku jira barnaamijkan oo ka mid ah waxyaalaha aan ku bixinno laabka waan macallin gooniya iyagana aan u qabanay oo experiments fara badan oo kala duwan oo joogto ah waxaa laga joogaa wakhtigii la aasaasay dugsiyada nuuraddiin maanta 20 sannadood maamulka dugsiyada nuuraddiin waxay hiigsanayaan in lagu soo kordhiyo dugsiyada waxyaabo badan oo ardaygu u baahan yahay oo waxna uga taraya waxbarashada ididiilada bini aadamku ma dhammaato waxaanu hiigsanaynaa in iskuulladan ardayda faraha badani ay dhigtaan waxa long term plankayga ku jirta inaanu jaamacad tusaale ah samayno jaamacad namuudajiya oo aad u fiican inaanu samayno oo weliba jaamacaddaasi qorshayaasheedii iyo nidaamkeedii iyo wixeedii oo dhani way noo sii degsan yihiin laguma soo koobi karo filimkan badweynta aqooneed ee aan ku arkay intii aan ku guda jiray soo saarista filimkan balse waxaa hubaala in dugsiyada nuuraddiin uu yahay hormoodka iskuullada jamhuuriyadda somalilan ugu dambayntii waxaan hambalyo iyo mahadcelinba aan u marinayaa halkan dhammaan dugsiyada nuuraddiin ee maanta jirsaday gugoodii 20aad ahaye meel laga aflaxo ahayaha iyo cilmiga udubdhiga ugu mudan ahaye